Assalaamu calaykum. Waa walaalkiin Maalik. Maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan gaadiidka cirka. Gaadiidka cirku waa horumar casri ah waxaana intiisa badan loo isticmaalaa daadguraynta dadka. Diyaaraduhu waxay u baahan yihiin shidaal qaali ah iyo dayactir dhammaystiran. Diyaaraduhu uma weyna sida maraakiibta oo kale, sidaa darteed aad bay qaali u tahay in la diro diyaarad kuwa xamuulka ah. Diyaaradda waxaa lagu qaadaa oo keliya cuntada dhaqso u qurunta iyo waxyaabaha degdega u doorsooma sida ubaxa iyo khudradda. Dhammaan badeecadaha kale waxaa lagu daadgureeyaa maraakiibta. Bacdama ay Afrika tahay qaarad weyn, gaadiidka cirka waxa uu ka caawiyaa inay u safraan dalal kale si dhaqso leh. Dadku waxay doonayaan in ay si dhaqso leh ugu safraan dalal kale. Ku safridda maraakiibtuna waxa ay qaadanaysaa muddo dheer. Maraakiibtuna waxay dadka geeyaan dekedda oo keliya, halka ay diyaaraduhu geeyaan meesha uu safarkoodu ku dhammaado. Waa haddii uu halka garoon ku yaallo ama airport. Diyaaraduhu waxay gaari karaan gobollada ku yaala gudaha dalka ee cidlada ah, halkaas oo aanay ka jirin waddooyin hagaagsan. Diyaaraduhu waxay tagaan gobolladaas cidlada ah iyagoo u sida kaalmo aadinimo dadka ka go'ay dunida inteeda kale. Fadlan haddii aad daawatay fiidiyowgan, channelka ii subscribe garee si aan u helno dhiirigelin una soo gudbino